ninkan aad aragtaan waa youtuber, waa nin carab ah. asal ahaan wuxuu ka soo jeedaa Cumbaan. wuxuu yimid Somaliland Geesa. wuxuu la kulmay xildhibaano iyo dadweyne degan Hargeysa. aad iyo aad ayay u soo dhaweeyeen. kadibna maxaa dhacay? wuxuu magaalada dhex bartamaheeda ka dhex arkay laba kale oo reer Yemen ah oo ay isla yihiin carab. kadibna way wada sheekaysteen. waxay isdhaheen inteed ka timid? isaga wuxuu dhahay waxaan ka imaaday Cumaan. kuwa kalena waxay dhaheen waxaan degannahay Hargeysa. Soomaali haddaynu nahay meel walba aan joogno ma rabno in muuqaal nagala duubto ilaa adiga aad dhahdid qofka muuqaal ayaan duubanaya diyaar ma u tahay. marka dadkan wadamada kale ka yimaaday carabta iyo Cumaanta hadeertaan ninkan uu ka yimid wax uma arkaan inay muuqaal duubtaan. way iska jecel yihiin, way rabaan, way ku faanaan. balse annaga Soomaali haddaan nahay ma jecelni, ma rabno in muuqaal nagala duubto without codsi la'aan. kadib maxaa dhacay? isaga oo video duubanaya bartamaha magaalada Hargeysa ayaa dadkii magaalada joogay ee reer Hargeysa ayaa ku soo xoomay. isaga oo aan weydiisanin wax permission ah ama codsi ah oo ah inuu muuqaal duuban rabo. kaamiradiisa ayuu la soo baxay. wuxuu bilaabay inuu wax duubto. dadkii ayaa ku soo yaacay. kadibna maxaa dhacay? intuusan muuqaalkiisii dhammaysan oo hadalkiisii uusan dhammaysan ayaa dadkii mar labaad ku soo xoomeen. kadib ayuu lafihiisa u baqay. wuxuu isdhahay meeshaan waxbaa ka soo socda. wuu ka cararay. kadibna isaga oo muuqaalkiisii duubanaya mar labaad oo Hargeysa ka cararay oo aaday meelaha asiga wadooyinka magaalada dhinaceeda kale ayaa wuxuu waxyar ka taabtay hadal aan caadi ahayn. hadalkaas oo ah in dhismaha Hargeysa iyo wadooyinka aysan waxyar islahayn. balse intaas laguma haysanne waxaa lagu haystaa ninkan in uu muuqaal ka duubtay dad aan diyaar u ahayn muuqaal. ninkii ugu dambeyntii Hargeysa wuu ammaanay wadooyinkeeda asiga sidoo kale wax buu ka sheegay. dhinaca kalena wuu ka ammaanay. waa nin aan caadi ahayn. waa nin youtuber ah. wadamada qaar badanaa u kala dhoofa si uu muuqaalo ugu diyaariyo. daawade barnaamijka halkaa nala soo gaartay. waxaan kaa codsanaya inaad share, like iyo comment barnaamijka aad ka bixisid si uu meel fog u gaaro. anigana waxay ii tahay dhiirigelin. mahadsanideen.